بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش شرفت له دونيدا مال والبادي قلا سقطان halkani waa channelka Aftahan Production oo kala socoto wararka ugu dambeeya xaaladaha ka jira geeyiga Soomaaliya Aftahan Production waa wehelka koowaad ee mar waliba soo gudbiya xogta ugu dambaysa ee Soomaaliya ku xirnaa channelka Aftahan Production si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay geeyiga Soomaaliya macluumaadada inta badan aynu baahino waxay ka tarjumayaan xaqiiqda ka jirta geeyiga Soomaaliya qodobada xiisaha badan ee xilli walba aanu soo gudbino waxay ka tarjumayaan xaqiiqda ka taagan geeyiga Soomaaliya xilligan meel walba oo joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka labada bisha sagaalaad 2019 caawa intiisa badan barnaamijku sir ayuu xambaarsan yahay xog waraysi iyo warar guud meel ayaan dhigi doonaa caawa sir bas ayaan gudbinayaa hadduu alla idmo sirtaasi oo aan rajaynayo in ummadda Soomaaliyeed ay wax weyn ka ogaan doonaan waxaa jiray qorshe howleed waqti ma sugayo caawa koorabna ma sugi doono waa iska boobsiinaya insha Allah idinkuna sii shargareeyay madaxweyne Farmaajo waxaa jiray arrin aan muddo dheer dabagal ku hayay ma jecli inaan noqdo qofka koowaad ee been sheega waxaan jeclahay inaan noqdo qofka labaad ee runta sheega ma degdego runta markay timaadana kursigaygan ku sugaa si tartiib ah iyo runta u imaanaysa waxaan caawiydinayaa wadamada Eritrea Ethiopia ayaa waxay kula taliyeen madaxweyne Farmaajo inuu sameeyo talo oo Soomaaliya gacanta ku hayn karo muddo ka badan 15 sano 20 sano ama uu weligii uu maamuli karo dalka Soomaaliya qorshahaasi Ethiopia ayaa keentay Eritrea way ku raacday Farmaajo ayaana lagu taliyay waana arrin aan muddo dheer baarayay caawa inta badan kama hadli doono wax kale sirtaasi ayaan si gaar ah dadka ugu iftiimi doonaa qorshahaas muddo dheer uu socday waa soo gabagaboobay laakiin anigu waa soo gaaray mar hore laakiin waxaan jeclaystay inaan noqdo qofka labaad ee runta ka sheega inta noqon lahaa qofka koowaad ee been sheega marka daawadayaal arrintaasi ayaan falanqayn doonaa